Dubai ayadoo ay ku dhinteen dad shacab ah iyo sidoo kale duuliyihii waday diyaaradaasi. Afar ruux ayaa ku dhimatay kadib markii diyaarad yar ay ku dhacday meel 3 mayl u jirta garoonka caalamiga ah ee Dubai. 3 ruux oo reer Britain ah iyo mid u dhashay dalka Koonfur Afrika ayaa saarnaa diyaaradda nooceedu yahay DA42 oo ka diiwaan gashan dalka UK sida ay sheegeen mas'uuliyiinta isku tagga Imaaraadka. Shirkadan ayaa shaqaalaheedu adduunka u safraan si ay u bixiyaan caawinaad duulimaadyada la xiriira ayadoo arrimaha ay qabtaan ay ka mid tahay qiimeynta raadarada iyo waxyaabaha kale ee la xiriira qalabyada soo degitaanka diyaaradaha qaabilsan garoomada ku yaala adduunka. Hay'adda guud ee u qaabilsan la socoshada badqabka diyaaradaha iyo magaceeda loo soo gaabiyo GCAA ayaa sheegtay in uu socdo baaritaan la xiriira dhacdadani. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in diyaaradda ay ku dhinteen duuliyihii iyo waliba caawiyihii duuliyaha iyo 2 ruux oo rakaab ahayd. Duulimaadyada ayaa dib loo dhigay, kuwa kalena meelo kale ayaa loo weeciyay. Garoonka diyaaradaha ayaa xirnaa muddo 45 daqiiqo ah.